بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo jirnay kitaabkii safiinatu الnajaah فيما يجب على العبد لمولاه ee uu qoray alfaqiih alcalaama saalim bin cabdillaahi bin samiir alxadramiy ashaaficiy, sheekhaas oo dhintay markii hijradii nabiga laga joogay calayhi salaatu wassalaam 1217. isagii ayaan halkii kasii wadaynaa. wuxuu yihi sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi: shuruudu sixati salaah, salaada asixideeda shuruudeeda ayaa halkan ka gelaynaa. marka laba shuruudood baa jira, waxa la yidhaha shuruud ulwujuub iyo waxa la yidhaha shuruud sixa ayaa kala jira. marka midda hadda aan ka hadlayno waa shuruud sixa, qofka salaadu ay ka asaxayso. ama shuruud ulwujuub way ka duwan tahay, oo qofka ay ku waajibi inuu muslim yahay, inuu muslim inuu yahay, inuu baaliq yahay, baaliq caaqila, yacni inuu yaho haddana muslima, inuu daahir yahay oo xayd iyo ka daahir yahay. shuruudahaas weeyaan shuruud ulwujuubku. ama shuruud sixa sheekha inuu sheegaya. wuxuu yihi sheekhu: shuruudu salaati, salaada shuruudeedu 8 waa 8. marka waxaa kala jira shardi iyo rukni. ruknigu waa waxa salaadu ay ka kooban tahay, ama shardigu isagu waxa salaada ay ka kooban tahay ma aha, laakiin waa wax lagama maarmaan ah oo isaga la-aantii salaadu ayna asaxaynin, laakiin salaada aan qeyb ka ahayn. shuruudu salaati 8, salaada shuruudeedu waa 8 ayuu yihi sheekhu. midka koobaad, dahaaratu lxadathayni, laba xadath waa inuu ka daahir yahay. xadath waxaa jira laba xadath wixii weyse waajibiya. xadath yar baa la yidhaha, xadath asqar. wixii qabays waajibiyana xadath akbar baa la yidhaha. marka labadaaba waa inuu ka daahir yahay qofka salaada tukanaya. hadduuna labada daahir ka ahayn midkood, salaadii kama asaxayso. 2, wadahaaratu waa inuu daahir yahay can najaasati, najaasa uu ka daahir yahay, fi thawbi marada, walbadani jidhka, walmakaani meesha uu ku tukanayo. ruuxa tukanaya waa in maradiisu ay daahir tahay, jidhkiisu waa inuu daahir yaho najaasa ayna ku oolin. meesha uu ku tukanayo oo xubnihiisu ay gaadhayaan markuu tukanayo, wejiga, gacmaha, jilbaha, maradiisu inta ay taabanayso waa in ay daahir tahay oo najaasa ayna lahayn. ama haddii saddexdaa midkood najaasa leeyahay, maradiisa najaasa ku taalla, jidhkiisa meel ka mida, ama meesha uu ku tukanaye uu la baashirayo ee uu taabanayo isaga ama maradiisu haddii najaasa ay leedahay, salaadiisu waa baadil oo ma asaxayso. 3, wa satrul cawrati, cawrada oo la asturo. waa in cawrada la asturo, yacni dib baa laga sheegi doonaa, rag iyo dumarba. ruuxu markuu tukanayo cawradiisu waa inay asturan tahay. way kala duwan tahay ragga iyo dumarka cawradooda salaada markay ku jiraan, oo sheekhaa dib inooga sheegi doona insha allah. oo dumarka wejiga iyo labada gacmood mooyeen inta kale waa inay asturaan markay tukanayaan. raggu labada low iyo xudunta inta u dhaxaysa ayaa waajiba in la asturo. wuxuu yihi sheekhu ka afraad, wa istiqbaalu lqiblati, qiblada qaabilideeda. qiblada waa inuu qaabilo. kacbada maka ku taalla ee masjidulxaraamka ku dhex taalla waa inuu qaabilo. hadduu joogo maka, yaqiin waa inuu u qaabilo, markaa uu yaqiin u qaabilo. ama haddii uuna markaa joogin, uuna u dhoweyn oo dibadaha uu ku nool yahay iyo meel ka baxsan markaa maka,
waa in uu ku ijtihaado oo meesha oo markaas oo qibladii yaano ijtihaad ahaan inuu ku ijtihaado weeyo oo meesha qibladii ay la tahay uu tukado. Lambar 5 wa dukhulul waqti, waqtigu waa inuu galo. salaadii oo waqtigeeda weli gelin ruuxii tukada salaadiisu ma asaxayso. hadda filan oo kale waxaa dhacda hadda xilligan aan joogno oo kale filan calaamadihii salaada cishaha oo marka shafaqa axmarka uu dhaco ahayd ma jiraan. calaamadihii salaada subax fajrka lagu garanayayna ma jiraan. markay saas oo kale ay tahayna yacni meesha ugu dhow ee fajrka ee calaamadaha fajrka iyo salaada cishaha laga arkayo in lala socdo wey oo culimadu ay sheegeen. maxaa yeelay adduunka oo dhan calaamadihii kama maqna ee meelo kooban iyo waqtiyo kooban. bisha afraad 24keeda ilaa bisha 8aad 24keeda qiyaasta filan oo kale ayay calaamadaha cishaha salaada cishaha iyo fajrku maqan yihiin. طيب markay maqan yihiin marka waa sida markay joogaan marka waxaa jira mar salaada cishaha iyo ay kala fog yihiin salaada maqribka oo kale oo calaamadihiina ay joogaan. marka iyada dad waxaa jira iska tukada oo yiraahda salaada maqrib markaan tukano saacad ka bacdiba waa iska tukanaynaa ama saacad iyo badh. maxay ku tukanayaan? xadiidkii wuxuu leeyahay marka shafaqu uu dhaco marka baa la tukanayaa oo taa waa la isku raacsan yahay xataa khilaaf kuma jiro waa ijmaac. marka in la ilaaliyo weeye oo marka salaada waqtigeedu gelin aan la tukanin. marka salaada waqtigeeda oo aan gelin haddii la tukado salaada baatil weeyaa. lambar 6 wal cilmu in la og yahay bifardiyatiha salaada faralnimadeeda. ruuxani hadduu salaadaba sunno u haysto inayna waajib ahayn ma ka asaxaysaa? waa maya wey. salaadu waajib ilaahay ku waajibiyay inay tahay waa inuu ictiqaadsan yahay. lambar 6 wa an laa yactaqida waa inuuna u caqiideynin fardan faral oo min furuudihaa salaada faralyaalkeeda kamida sunnatan sunno waa inuuna u caqiideynin. farad iyo rukni cinda shaaficiya waa isku mid. faral iyo rukni iyo waajib waa isku mid cinda shaaficiya. marka hadda rukni baa loo jeedaa. wa an laa yactaqida waa inuuna aaminsanayn oo uuna u caqiideyneynin ruuxa tukanaya fardan faral bimacnaa rukni oo min furuudihaa salaada arkaanteeda kamida sunnatan sunne. mathalan rukuucdu waa faral kamida salaada faralyaalkeeda. hadduu rukuucda u caqiideysan yahay inay sunno tahay salaadiisu waa baatil. sujuudu waa rukni kamida arkaanta salaada. hadduu u caqiideysan yahay inay sunno tahay salaadiisu waa baatil oo waxba kama jira wey. rukuucda marka laga tooso ictidaalka oo saa laysu taago waa rukni kamida arkaanta salaada. waa inuu iman doonaa insha allah. hadduu u caqiideysan yahay inuu yahay sunne salaadiisu waa baatil. faatixada in la akhriyo waa waajib. hadduu u haysto sunne salaadiisu waa baatil. yacni rukni oo arkaanta salaada kamida waa inuuna u caqiideysnayn inay sunno tahay. hadduuna kala aqoonin ka waran sida dadka caamada u badan yihiin. hadduuna kala aqoonin laakiin waajib u wada haysto salaadii oo waajibka ahayd inuu tukanayo si guud ahaaneed markaa dhibaato male. laakiin waa inuu barto. laakiin waxaa laga hadlayaa yacni khaas ahaan rukni faral oo gaar ah inuu u arka inay tahay sunne. taasaynu ka hadlayna. lambar 8 wa ijtinaabu lmubdilaati salaada wax buriya waa inuu ka fogaado. wa ijtinaabu almubdilaat inta salaada uu ku jiro markuu yidhaha allahu akbar ee uu galo ilaa assalaamu calaykum laga gaadhayo wax salaada buriya waa inuu ka fogaado oo salaada ka burinaya waa inuuna la iman. ayib intaasi waa shuruuda salaada. wuxuu yihi sheekhu faslun alaxdaathu xadaثyaalku xadadka waa waxa oo maaragtay wax kuu diidaya salaada inaad tukato. iyo wixii lamida salaada iyo wixii lamida dawaafkii iyo qur-aankoo la taabta iyo wax kuu diidaya xadaث la yidhaah. alaxdaathu xadaثyaalku 2 waa 2
asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn. maxaa mid yar iyo mid weyn loo yidhi? waxaa loo yidhi marka la eego kan waxa xaaraanta ku ah iyo kan waxa xaaraanta ku ah, weynidu xaggaasay ka imanaysaa. waxaasaa kala badan. fal asqaru xadadka yari maa awjaba wixii waajibiye weeye alwuduu'a weyso. maalan qofkii musqushuu galay, saxaro ama kaadi baa ka timid, neef baa ka timid, maalan laba qof oo ajnabi ah yaa jidhkoodii isgaadhay, yacni wixii weyse waajibiya oo kuwii aynu soo marnay. fal asqaru xadadka yari maa awjaba wixii waajibiye weeye alwuduu'a weyso. wal akbaru xadadka weynna maa awjaba wixii waajibiye weeye algusla qabays. labada waan soo marnay, waxa qabays waajibiya iyo waxa weyse waajibiya. cashiradeenii hore ayaan kusoo qaadanay. wuxuu yihi sheekhu faslun alcawraatu cawrooyinku arbacun waa afar. bini aadamka cawradiisa marka lasoo koobo afar buu sheekhu u qaybiyey. cawratu rajuli ninka cawradiisa mutlaqan iyadoon la kala qaadin, mutlaqan ama salaad ha ku jiro ama yuusa ku jirin. iyo walamati adoonta cawradeeda, waagihii adoomuhu ay jireen, haweeney adoonoo laleeyahay cawradeedu oo fi salaati ah, marka salaada iyadu ay ku jirta keliya ah. labadaa cawradoodu maa bayna surati xudunta iyo warukbati lowga ama jilibka, ninba si uu u yaqaanaba inta u dhaxaysa wey. ninka cawradiisu ama salaad ha ku jira ama yuun ku jirin, xudunta iyo labada jilib, labada low inta u dhaxaysa weeye cawradiisu. ama rag hala joogo ama dumar. adoonta markay salaada tukanayso waagii adoomuhu jireen, yacni xudunta iyo labada jilib inta u dhaxaysa weeye cawradeedu marka salaada keliya iyada laga hadlaya. taa waa hal cawro meeshaas. waa cawrada labaad. wa cawratu lxurati haweeneyda xorta ah cawradeeda fi salaati salaada dhexdeeda jamiicu badaniha jidhkeedoo dhan weeye. markay tukan waa inay qariso. maa siwal wajhi wejiga wixii kasoo hadhay iyo walkafayni labada gacmood, walkafayni labada sacabood, labada dhuub. kafayn intan baa kaf la yidhaah, intaas marka labadaa isdaboolaya oo halkaa ilaa halkaa, intaas ayaa kaf la yidhaah. soomaalidee maxaan dhahnaa sacabo iska dhe. marka la sacabaynayo labadan baa la ysku dhuftaa. waxaa kaloo soomaalidu tidhaa biyo webi sacabadaadaa lagaga dhergaa, iyagoo ka wada yacno shaqadaada unbaa lagu dhergaa, ee dad kale wuxuu ku siiyey laguma dhergo. marka sacabaha wixii kasoo hadhay labadaa waa inay qariso, labadaa wixii kasoo hadhay iyo wejiga. lugaha waa inay sigisaan gashato ama wax kaloo u dhigma. hadiyo jeer inta badan waxaa dhaca intay mariya saa ugu duubaan ayaa laga yaabaa markay sujuudo iyadoo cidhbaheedu qaawan yihiin inay tukato. taana salaadii ma asaxayso, baatil bay noqonaysa. taa waa cawrada haweeneyda xorta oo waa mid. wa cawratu lxurati haweeneyda xorada cawradeeda oo fi salaati salaada ku jirta jamiicu badaniha jidhkeeda oo dhan weeye. maa siwal wajhi wejiga iyo walkafayni labada sacabo wixii kasoo hadhay, labada sacab. meesha laba cawraan haysanaa. lambar 3 wa cawratu lxurati haweeneyda xorada cawradeeda iyo walamati adoonta oo cinda alajaanibi rag ajaaniba agtooda jooga, rag aan maxram u ahayn oo nikaaxu u qaban agtooda jooga. jamiiculbadani jidhka oo dhan wey. haddii rag ajaaniba meesha ay joogaan jidhkeedoo dhan waa cawro. matan iyo wejhiga iyo gacmaha, haa waa cawra tan iyo wejhiga iyo gacmaha oo raggu iyagoon dan ka lahayn inay eegaan ma banaana. inay eegaan iyagoon dan ka lahayn raggu, oo hadday dan ka leeyihiin oo aan shahwo ahayn oo ah maalan waxbay kala gadanayaan, waxbay kala kiraysanayaan, waxbaa la isbarayaa oo ama iyadaa baraysa ama isagaa baraya. makhraati baa jira, iyadaa lagu makhraati kacaya ama iyadaa makhraati kacaysa. saasoo kale waxyaabahaas hadday jiraan markaa haa
يعني wejigeedii waa bannaan yahay iyo gacmaheedii يعني in la eega way bannaan tahay oo markaa maaha inay isku adkayso tiraan niqaab يعني yaan ku xidhnaanaya waa sharci weeye markaa in la eego way bannaan tahay bannaanka marka la joogo marka ay wadada socoto wejiga inay qariso ma waajib bay ku tahay maya wejiga inay qariso waajib kuma aha laakiin ragga ayaa waxaa waajib ku ah inay indhaha ka laabtaan يعني wejigeedu waa cawro gacmaheedu waa cawro iyo inay qariso waa waajib waa laba masalo kala duwan يعني oo kala gooni ah way waa cawro oo raggu muraad la'aan inay eegaan oo arrimaha aan soo sheegnay iyagoo jirin inay iska eegaan uma bannaano waa cawro ama iyada يعني inay wejigeeda qariso waajib kuma aha iyagay tahay inay indhaha ka laabtaan waa laba masalo kala duwan weeyaan marka niqaab waajib kuma aha marka suuqa ay socoto waajib kuma aha laakiin ragga ayay tahay inay indhahooda ka laabtaan saasay kutubta ugu qoran tahay طيب وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن واجركيدا oo dhan lambarka afraad وعند محارمهما maxaarimtooda markay la joogaan ragga nikaax uuna u qabanayn aabaheed walaalkeed adeerkeed markay la joogaan abtigeed وعند محارمهما maxaarimtooda markay la joogaan iyo wan nisaa dumar kale dumar kali markay yihiin cawradoodu ma bayna surrati xudunta iyo warukbati lowga inta u dhaxaysa way markay dumar kali yihiin ma bayna surra warukba way cawradoodu markii oo maxaarimta ay la joogto cawradeedu yani jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa inta yani ayaa cawradeeda طيب عورooyinkii marka inta hadaan kaga soo baxnay afartaas cawrooyinkii weeyaan sheegnay ninka cawradiisa ama salaad ku jira ama yoon ku jirin iyo adoonta oo salaad ku jirta waa qaybta koobaad oo ma xudunta iyo labada jilib inta u dhaxaysa haweeney xorro oo tukanaysa wajiga labada gacmood wixii ka soo haray haweeney xorra ama adoon oo rag ajaaniba la jooga qaybta saddexaad weeye oo jirko dhan waa cawro in laga eego ma banaano marka maxaarimta ay la joogto qofka dumarka ama dumar kaliya ay yihiin ma bayna surra wa rukba weeye inta yani jilibka iyo xudunta u dhaxaysa cawradooda wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam